hirgelinta istiraatiijiyada wacyigelinta qaranka muqdisho 18 ilaa 21 Agoosto 2019 wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirada dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo gobolka Banaadir oo muddo 4 maalmood ah kulan uga socday magaalada Muqdisho ayaa soo saaray warmurtiyeedkan oo ka kooban 12 qodob shirka waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirka warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka Puntland mudane Cali Xasan Axmed wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Koonfur Galbeed mudane Ugaas Xasan Cabdi Maxamed wasiirka warfaafinta dhaqanka hanuuninta iyo dalxiiska Galmudug mudane Maxamed Aadan Cusmaan Masagawa wasiirka warfaafinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska Hirshabeelle mudane Cabduli Maxamed Cabdi mas'uuliyiin ka socota dowlad goboleedyada dowlad goboleedka Jubbaland agaasimayaasha guud agaasimayaasha warbaahinta ee wasaaradaha warfaafinta xeerdhaaliyaal warbaahinta iyo wacyigelinta bulshada iyo madax kale muddadii shirku socday wasiiradu waxay shir ducaadiyo side meeting gaar ah la yeesheen 19 Agoosto 2019 waxay hotel Jazeera kula shireen madaxda ururada iyo agaasimayaasha warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo madaxda ururada bulshada rayidka ah sida culimada salaadiinta dhaqanka ururada dhalinyarada haweenka dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo qaar ka mid ah madaxda jaamacadaha 22 Agoosto 2019 waxay howlka shirarka ee Amsom VIP kula qaateen ama kula kulmeen dowladaha ururada caalamiga ah ee taageera warbaahinta Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha iyo shirkadaha daneeya ama ka qayb qaata wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed qodobada ajandaha oo ahaa kulanka wasiirada shirka looga dooday waxaa ka mid ahaa xoojinta xiriirka wada shaqeynta ee wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka iyo wasaaradaha warfaafinta ee dowlad goboleedyada hirgelinta istiraatiijiyada wacyigelinta qaranka oo hore ay isula sameeyeen dhammaan wasaaradaha warfaafinta ee labada heer ee dowladda lagana ansixiyay golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya saddex dhiirigelinta iyo horumarinta wariyaha iyo warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo ku wacyigelinta mas'uuliyadaha saaran ama ka saaran difaacidda danaha qaranka midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo ugu dambeyn sidii loo hagaajin lahaa xiriirka iyo wada shaqeynta wasaaradaha iyo taageerayaasha caalamiga ah ee warbaahinta iyo wacyigelinta bulshada looguna jeexi lahaa dariiq iyo nidaam wada shaqeyneed oo la isku ogyahay wadatashi dheer oo 3 maalmood qaatay kadib ka soo qaybgalayaashu waxay isku raaceen wasiiradu waxay ku heshiiyeen in la xoojiyo isku xirnaanta wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee labada heer ee dowladda oo loo sameeyo nidaam iyo qaab dhismeed ay si joogto ah ugu kulmaan uguna kala war qaataan wasiirada agaasimayaasha guud agaasimayaasha telefishinada agaasimayaasha raadiyaasha kuwa maamulka iyo wixii la mid ah si loo xoojiyo iska warqabka iyo khibrad wadaaga labo in lagu dhiirigeliyo madaxda sare ee qaranka heer federaal iyo heer dowlad goboleed muhiimadda wacyigelinta bulshada iyo inay taageeraan baahinta iyo hirgelinta istiraatiijiyadda wacyigelinta qaranka oo ay ku dhan yihiin dhammaan qaybaha iyo meelaha bulshada Soomaaliyeed ugu baahan yihiin wacyigelin in la magacaabo guddi farsamo oo isku dhaf ah oo daraasad ku soo sameeya tirada iyo tayada warbaahinta dowladda ee labada heer si loo ogaado awoodda wasaaradaha warfaafinta dhinacyada qalabka shaqaalaha barnaamijyada wacyigelinta ee ay sameeyaan inta ay boqolkiiba gaarsiiyaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed afar in la sameeyo xarun iyo galo wacyigelineed oo ay ku mideysan yihiin wasaaradaha warfaafinta ee labada heer ee dowladda oo soo saara barnaamijyo iyo fariimo qiimo u leh bulshada Soomaaliyeed oo si siman looga sii daayo warbaahinta dowladda ee heer federaal iyo maamul goboleed kana shaqeeya sidii wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska isu dhaafsan lahaayeen khibradaha agabka iyo tababarada ay isdheer yihiin number 5 wasiiradu waxa ay fareen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha in ay si degdeg ah u dhisaan una howlgeliyaan xarunta wacyigelinta qaranka lana bilaabo soo saarista iyo gudbinta fariimo iyo barnaamijyo wacyigelineed oo bulshada dalka oo dhan loogu tilmaamayo muhiimadda midnimada iyo wadajirka muhiimadda nabadda iyo xasiloonida la dagaalanka amni xumada iyo argagixisada musuqmaasuqa
barashada dastuurka nidaamka federaalka iyo nidaamka doorashooyinka kala duwan ee dalka dib u heshiisiinta istaakulaynta iyo dowlad wanaagga 6 in lagu dhiirigeliyo dowladaha hay-adaha iyo ururada taageeraha warbaahinta Soomaaliya inay kordhiyaan taageeradooda isla markaana waafajiyaan mashaariicda ay maalgelinayaan istiraatiijiyadda wacyigelinta qaranka sidoo kale fuliyaasha qandaraas qaatayaasha ka shaqeeya arrimaha warbaahinta iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ku dhaqmaan public awareness guiding policy iyo principleski wasiiradu la wadaageen shirkii 20 Agost 2019 ee lagu qabtay qolka shirarka ee Amisom VIP todoba in la sameeyo siyaasad ama xeeroosaad saldhig u noqda wada shaqeynta wasaaradaha warfaafinta ee labada heer ee dowladda Soomaaliya oo ay ku cad yihiin arrimaha laga wada shaqeynayo waajibaadka dhinac kasta leeyahay iyo joogteynta isdhaafsiga wararka barnaamijyada kulamada tababarada iyo aanay wax luga ku yeelan wacyigelinta bulshada ee ay wadaan howlwadeennada wasaaradaha warfaafinta duufaanada siyaasadeed ee mararka qaar imaan kara 8 wasiiradu waxay ammaaneen doorka warbaahinta gaarka loo leeyahay culimada salaadiinta ee ururada bulshada rayidka ay kaga jiraan ama ku leeyihiin howlaha wacyigelinta bulshada waxayna ka codsadeen inay xoojiyaan dadaalkooda xilligan ummadda Soomaaliyeed ka gudbayo amni xumada la noolaanshaha argagixisada iyo kala qaybsanaanta soo dilootay ummadda Soomaaliyeed kana dheeraadaan wax kasta oo dib inoo celin kara 9 wasiiradu waxay isku raaceen in shirka soo socda ee wasiirada warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada lagu qabto magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed 18 November 2019 haduu la eedmo number 10 wasiiradu waxa ay u mahad celiyeen wasiirka iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowladda federaalka Soomaaliya sidoo wanaagsan ay u soo qorsheeyeen una soo awaawileen shirkan ay ku kulmeen madaxda wasaaradaha warfaafinta ee labada heer ee dowladda 11 sidoo kale wasiiradu waxay u mahad celiyeen dowladaha ururada iyo hay'adaha caalamiga ah ee saaxiibada la Soomaaliya ee taageera warbaahinta wacyigelinta bulshada iyo horumarinta iyo badqabka wariyaha mahadsanidin intaas waxa ku eg warbixintii laga soo saaray shirkii 4 cisho u socday wasiirada warfaafinta waa dowladda